Laba gabdhood ayaa haro agteeda ku sheekaysanaya. Si kedis ah ayay u ogaadaan in biyaha ay ka buuxaan kalluunno biran ah. Iyagoo argagaxsan ayay isku dayaan inay baxsadaan, laakiin kalluunkii gardarada badnaa ayaa bilaaba inay ku dhuftaan buundadii alwaaxda ahayd. Shelby ayaa dheelitirkii weyda oo si toos ah ugu dhacda harada. Biyaha gilgilashadooda ayaa isla markiiba soo jiidata koox gaajaysan. Madie ayaa si degdeg ah u dhaqaaqda oo Shelby dib ugu soo jiida buundada daqiiqadii ugu dambeysay. Waxay isku dayaan inay ordaan, laakiin dhowr tallaabo kadib cagta Shelby ayaa jebisa loox qudmay. Way ku dhegtaa inkastoo xeebtu dhowr tallaabo u jirto. Biranhayadu waxay bilaabaan weerar kale oo xoogan. Wax walba way qasmaan. Labadooduba biyaha ayay ku dhacaan. Koox aad u weyn oo kalluun ah ayaa u soo yaacda. Nasiib wanaag, labada gabdhoodba waa dabaalyahano xoogan. Waxay ku guulaystaan inay gaaraan xeebta ilbiriqsiyo ka hor inta aysan kalluunkaasi qaniinin. Haddii aad nagu cusub tahay, ha moogaanin muuqaalada xiisaha leh. Subscribe saar, like dheh, sharana la wadaag asxaabtaada. Laakiin ka hor inta aysan neefsan, wax waalan ayaa dhacaya. Mid ka mid ah biranhayada ayaa biyaha ka booda oo si toos ah ugu soo duusha. Madie ayaa isla markiiba falcelisa oo hawada ku qabata kalluunkii. Waxay ku garaacdaa dhulka kadibna dhagax ayay ku burburisaa. Dagaal adag kadib kalluunkii ugu dambeyn wuu istaagaa. Si ay u ogaato halka ay makhluuqyadan ka yimaadeen, Madie waxay u tagtaa khabiir kalluun. Waxaa la socda saaxiibkeedii hore Kile oo booliis ah iyo saaxiibkood bari. Waxay u geeyaan muunadii Carl Goodman si uu baaro. Goodman waa khabiir yaab badan oo ka badbaaday xasuuqii Lake Victoria sanadkii hore. Xitaa wuxuu gurigiisa ku hayaa mid nool oo taangi ku jira. Wuxuu uga daran yahay sidii qof walba filayay. Si uu taas u caddeeyo, Goodman wuxuu taangiga dhex geliyaa saxan bir adag ah si uu u kala qaybiyo. Dhinaca kale ayuu rahdhigaa si uu u noqdo sad. Kooxdu way ka shakisan tahay. Ma jiro kalluun ka gudbi kara bir adag, laakiin waxa xiga ayaa hadal beeliya. Biranhagu wuxuu waalanayaa marka uu dareemo cunto. Wuxuu si joogto ah ugu dhacayaa saxankii birta ahaa. Dhowr ilbiriqsi gudahood ayuu dalool kaga sameeyaa birtii. Markii uu kalluunkii rabay inuu liqo raha, bari ayaa qabtarayay. Wuxuu horay u lahaa raax xayawaan ah, mana u adkaysan karo in la cuno. Goodman wuxuu u sheegayaa war xun. Kuwani ma aha kalluun casri ah. Waa biranhayo taariikhi hore ah oo la moodayay inay dabar go'een malaayiin sano ka hor. Ma garanayo sida ay dib ugu soo noqdeen. Maadaama aysan lahayn ugaarsato dabiici ah oo ay si degdeg ah u tarmaan, waxay dhowaan qabsan doonaan harada. Xitaa waxay ka gudbi karaan dhuumaha biyaha oo geli karaan barkadaha dabaasha ee gaarka loo leeyahay. Madie waxay garanaysaa inay dhibaato weyn ku jiraan. Aabaheed korsaday Kat wuxuu beri furayaa jardiin biyo oo si toos ah ugu xiran harada. Haddii Goodman sax yahay, waxay noqon doontaa xasuuq dhiig badan leh. Goodman wuxuu qirayaa inuu dadka uga digay marar hore, laakiin maadaama uusan lahayn sumcad rasmi ah, cidina ma aaminsana. Markay garowsato halista arrintu leedahay, Madie waxay dib ugu laabataa harada. Waxay xirataa muraayadaha dabaasha waxayna biyaha ugu quustaa toosh si ay u hubiso filtarada bulaacadaha. Bilowgii wax walba way caadi yihiin, laakiin markii ay jeesato si ay uga baxdo, biranha ayaa si kedis ah u weerarta. Urta dhiiga ayaa isla markiiba soo jiidata koox aad weyn. Xeebta dusheeda, Kile wuxuu arkaa khatarta wuxuuna biyaha ugu boodaa si uu u badbaadiyo. Wuxuu Madie ka soo saaraa biyaha ilbiriqsiyo ka hor inta aysan kooxdu gaarin. Guriga markay tagto, Madie weli way argagaxsan tahay. Waxay isku daydaa inay qubaysato si ay u dejiso, iyadoo aan ogeyn in biranhayadu ka soo baxayaan qasabada biyaha. Nasiib wanaag way toostaa. Waxay ahayd riyo keliya, laakiin riyadu waxay u noqotaa digniin. Waa inay joojisaa furitaanka jardiinada biyaha ama musiibo ayaa dhici doonta. Subaxdii xigtay, jardiinadu mar hore ayay ka buuxdaa dalxiisayaal. Madie waxay raadisaa Kat waxayna u sheegtaa wax walba, laakiin isagu dan kama laha. Wuxuu lacag badan ku bixiyey jardiinadan mana doonayo inuu wax kala waayo. Isagoo iska indhatiraya digniinteeda, Kat wuxuu shidaa matoorada biyaha. Ma oga in mawjado waaweyn oo biranha ah lagu nuugayo nidaamka. Mid ka mid ah kalluunka ayaa jebiya filter oo gala barkada. Wiil yar ayaa hooyadiis u sheegaya in wax qaniineen lugtiisa, laakiin ma aaminsana. Waxay ku tiraahdaa waa xag yar kadibna way dirtay. Markuu dhiiga dhadhamiyey, biranhagii wuxuu dib ugu noqdaa dhuumaha si uu saaxiibadiis ugu soo waco casho weyn. Wax yar kadib, barkadu waxay bilaabaysaa inay si yaab leh isu beddesho. Mid ka mid ah dadka ayaa ogaada inay wax khaldan yihiin wuxuuna u sheegaa Madie. Madie waxay isku daydaa mar kale inay Kat ku qanciso inuu dadka ka saaro jardiinada, laakiin wuu diidaa. Xitaa Kile ayaa ku yiraahda Madie inay joojiso argagaxa ay faafinayso. Iyadoo caraysan sababtoo ah cidina ma aaminsana, Madie waxay ku qaylisaa dadka inay biyaha ka soo baxaan, laakiin Kile ayaa xoog ku jiida kana fogeeya goobta. Dalxiisayaashu waxay sii wataan qoraxaysiga iyagoo aan waxba ka warqabin khatarta. Kadib qaniinyadii ugu horeysay ayaa dhacda. Haweeney ayaa aragta dhiig biyaha ku jira waxayna garanaysaa inay wax aad u xun jiraan, laakiin waa goor dambe. Kumanaan biranha ah ayaa ku soo qulqulaya barkada, goobtiina waxay isu beddeshaa xasuuq dhiig leh. Biyihii waxay markiiba isu beddelaan casaan dhiig ah. Xitaa dadka ku jira barkadaha simbiriirada ayaa la weeraraa iyagoo hoos u soo dhacaya. Jardiinadii waxay isu beddeshaa fowda buuxda iyadoo qof walba qaylinayo oo naftiisa la cararayo. Keliya Deputy Fallon ayaa degan. Wuxuu ku fadhiyaa kursigiisa curyaamiinta. Wuxuu kaaliyihiisa ka codsadaa inuu ku xiro lugihiisa birta titaniumka ah. Wuxuu u dhaqaaqaa dhanka barkada isagoo go'aansaday inuu dagaalamo ilaa dhimasho. Biranhayadu xitaa ma dhaawici karaan lugihiisa birta ah. Waxaaba ka sii fiican, lugihiisa macmalka ah si gaar ah ayaa loo sameeyey. Wuxuu adeegsadaa qori shotgun ah oo lugtiisa ku dhex jira si uu biranhayada ugu qarxiyo. Wuxuu si adag ugu dagaalamaa inuu dalxiisayaasha badbaadiyo, laakiin kalluunka ayaa aad u badan hal nin inuu la tacaalo. Kat wuxuu daawanayaa xasuuqa isagoo naxsan oo qoomamaynaya. Madie iyo bari waxay si degdeg ah u raadinayaan hab ay ku joojiyaan gowraca. Si loo badbaadiyo dad kale, waa inay barkada isla markiiba faarujiyaan. Madie waxay bari u sheegtaa inuu furo waalalka biyaha iyadoo iyadu joogayso si ay dadka u badbaadiso. Intuu ku sii jeedo qolka matoorada, bari wuxuu la kulmaa saaxiibkiis Dafe. Labadoodu waxay gaaraan kontaroolada waxayna furaan waalalada. Barkadii waxay bilaabaysaa inay faaruqdo, xooga biyaha nuugayana wuxuu biranhayada ku jiidayaa dhuumaha. Madie oo weli biyaha ku
jirta ayaa iyaduna ku dhacda nuugista. Waxay aragtaa Kile oo dusha jooga waxayna moodaa inuu badbaadin doono, laakiin Kile wuu diidaa inuu caawiyo. Waxaa soo baxaysa in Kad uu Kile u ballan qaaday qayb faa'iidada ka mid ah si uu afka u xiro. Kile wuxuu uga tagaa halkaas. Madyana waxaa loo jiidayaa gunta barkada iyadoo ku dhegan oo aan dhaqaaqi karin. Waxaa kasii daran Biranha ayaa dalool ka sameeya derbiga oo kusoo dabaalanaya dhankeeda. Ilbiriqsigii ugu dambeeyey Bari ayaa yimaada. Wuxuu adeegsanayaa waran bir ah si uu kalluunka ugu mudayo si sax ah, laakiin Madya waxay biyaha ku jirtay waqti dheer waxayna miyir beeshaa. Bari wuxuu ugu boodaa biyaha wuxuuna ka soo saaraa barkada. Hal ilbiriqsi ma luminayo wuxuuna bilaabaa kbii. Ugu dambeyn way kufacdaa oo biyihii ayay soo tuftaa. Bari wuxuu ka soo celiyaa geerida qarka u saarnayd. Dhanka kale Defe oo ku jira qolka matoorada wuxuu go'aansadaa inuu si qarax leh ku dhameeyo. Wuxuu shidaal ku shubaa dhuumaha kadibna sigaar ayuu ku dhex tuuraa. Qarax weyn ayaa gilgila jardiinada waxaana cirka ka soo daaya kalluun dhintay. Markii qof walba moodo in riyadii xumayd ugu dambeyn dhammaatay, telefoonka Madya ayaa soo dhacaya. Waa Mar Goodman, codkiisuna wuu gariirayaa. Wuxuu uga digayaa in Biranhayadu ay isbedelayaan. Waxay baranayaan inay socdaan. Midkii uu taangiga ku hayayna wuu baxsaday. Isla waqtigaas Biranha ayaa ka soo baxda barkada oo dhulka ku socota. Wiilkii hore ayaa u soo dhawaada si uu sawir uga qaado. Kalluunku wuxuu hawada ugu boodaa wuxuuna madaxa ka gooyaa hal mar. Dhiig ayaa meel walba ku firda isagoo daboolaya jirkiisa.